بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي داوديال gaar ahaan daawadayaasha barta YouTube-ka aan ku jiro ama iga daawanaya SSTV bacda salaan magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo ku magac dheer Avocado ku sugan magaalada Nairobi muuqaal yar baan rabaa inaan idin la wadaago oo aad u soo kooban su'aalo dad fara badan i weydiiyeen baan rabaa inaan ka hadlo run ahaantii dadka aan friendska nahay iyo dadka baraha bulshada isticmaala khaasatan Facebooka waxaa maanta qabsatay hadal hayn iyo sawirro iyo wax la isla dhex wareegayo taana aan filayo in la ii sababaynayo inaan ama anigu sabab u ahaa sababtaas oo keentay farxiyo kaba yar gabadh fanaanad Soomaaliyeed oo live soo gashay live kaas baa sababay in su'aalo la isweydiiyo ama waxyaabo fara badan si aan xaqiiqada ahayn loo sheego waxyaabo fara badan siday u jiraan si aan ahayn loo soo bandhigo live-ka farxiyo su'aalaha jiray ay aniga igu weydiisay live-kuna wuxuu daba socday video aan horey u duubnay aniga iyo saaxiibkay Nuur Maxamed oo isla stuudiyahan aan ku duubnay oo aan kaga xog waramayay Maxamed Saciid Bikay iyo Nairobi wixii ka qabsaday Maxamed Saciid Bikay markuu Nairobi yimid wixii Nairobi ka qabsaday iyo wixii isaga Nairobi ay ku kala kulmeen dadkoo dhan wuu ogaa laakiin waxa laga yaabaa inaan sida saxda ah loo ogeyn ama waxyaabo fara badan laga qalday anigu marka waxaan saxay intii xog ahaydeen ka hayay dabcan farxiya live soo gashay farxiya kaba yare live-kii ay soo gashayna waxay in fara badan ama ku durtay ama ay ku dhex oroday waxyaabo aan meesha ka jirin oo xaqiiqada garab marsan iyo su'aalo aan aniga igeeyin ama munaasab igu ahayn oo ay weydiisay intaas rabaa xogaa inaan idin la wadaago oo wax yar qaadaa dhigo aan u galo dulucda barnaamijka farxiyo waxay tiri Kenya Soomaalida ku nool yar iyo weyn sheekh iyo kabiir dhammaantood waxay ku nool yihiin gumaysi waxaana gumaysta qoys ka mid ah qoysaska Kenya daga ereygaas waa erey gaf ah waa erey aan waxba ka jirin waa erey xaqiiqada ka fog ma jiro Kenya qof gumaystaa ma jiro Kenyaan madow oo Soomaali gumaystaa ma jiraan Soomaalida dhaxdeeda dad isgumaystaa ma jiro inay si kala u dhigtaa way fiicnaan lahayd oo loo garaabi lahaa laakiin hadday tiraahdo waliba ereyga xanafta lahayd tiri dadka Kenya joogay yes ima soo dhihi karaan ama ha ima soo dhihi karaan ama kama soo hadli karaan live-kayga waayo waa la gumaystaa bay tiri ma jiraan cid la isgumaysto Soomaali qabiil kasta power kula Kenya qabiil kasta degan ma lagu kala qaybsana dad walaalaa degan cid ka awood badan ama cid ka lacag badanna ma ay jirto madax bay sheegtay magacooda madaxdaasina sharaf iyo maamuus iyo karaamay mudan yihiin waa dad wanaagsan Soomaaliya oo u siman tahay kuwa ehelka u ihina ay kaga calaacalaan maxaan ku dhahaayay dadka kale nooga xagliya ama nooga rooyahay intaas markaan su'aasha kaga gudbo gumaysi dadban bay tiri gumaysi dadban subxaanallah ma jiro gumaysi dadban waxaa kaloo ay soo dhigtay showyada iyo in la kansalo horta run ahaantii 2014 bay martimid waxay carabowday inay qoliyo show ka kansalay anigu aan ku jiray kuma aana jirin 2014 Nairobi na ma joogine Raymond Baasana ma baasan jiray farxiya haddii show laga kansalay waxaan cadaynayaa ama fanaan kale laga kansalay ama laga kansalay Europe Genyo oo horaan ahayd xiisad baa taagnay labada awoodood ee ugu awoodda badnaa geeska Afrika ee ku dagaalamaya waxay ahayn ONLF iyo Ethiopia ONLF waxay ku sugan tahay ama ay joogeen taageerayaasheedu dhammaan caalamka waa taageerayaasha kaliya ee aan qorraxdu ka dhicin bay ahaayeen yacni meel kasta oo qorrax ka soo jeedo way joogeen meel kastana awoodda ay ku leeyihiin bay kaga hor imaanayeen waxaan rabitaankooda ahayn ma suura gelayn farxiyo kaba yara intay u soo heesto deegaanka ama Ethiopia u soo heesto oo u soo burburaalayso inay Nairobi na istiraahdo ku darso ama meel kale oo ONLF ay power ku leedahay ay istiraahdo ka samee hawshaas oo kale ma ayna dhici kareenin fanaaniintan waa loo diiday taasi waa taa ha kala saarto maanta waa la heshiiyey Ethiopia Addis Ababa ONLF iyada ugu badan iyada ugu awoodiyo sumcad iyo waxaan ku dhahay tiraba badan hadday farxiya maanta timaado Ethiopia iyadoo shalay u heesaysay maanta hadday timaado roog cas baa lagu soo dhaweyn Soomaalinimada darteed waa hadday Soomaali tahay raggii Nairobi imaan kari waayay ee loo diiday yaa yimid roog cas baa lagu soo dhaweeyay waana la dhigay waayo colaadii noocaas ahayd waa laga soo gudbay
hawl laga soo gudbay bay daba socotaa farxiyo hadalladeedu taasna hadda ma jirto waa nabad Nairobi waad imaan kartaa cid ku qashqashaadi ma jirto tan kale ee tiimka ay ka dhigtay dad ay u xidhantahay wiilasha cas ee dhaadheer ee ilkaha cas wiilasha cas ee dhaadheer ee ilkaha cas reer Nairobi oo dhan baa wada dhaadheer oo wada cascas qoys gaari ma casa qoys gaari tilmaanta ma laha wiilal gaari ma laha dad baa jira fanka ku shuqul leh adigu ka farxiyo ahaan aad la soo xidhiidho markaad imaanayso qof kasta oo fanaan ah oo ka yimaanaya meel aan Nairobi ahayn oo show inuu Nairobi ku qabsado rabaana wuxuu la soo xidhaa dadka isaga ah baa u shaqeeya u qaadima hotelku degi lahaa u qabta ama gurigu degi lahaa u qabta hoolku showga ku dhigan lahaa u qabta ilaa ninaan dhul aqoon uu indhala yahay nin Nairobi ku cusub tahay waxba kama uu yaqaan laakiin dad indha u abuur raadsadaa dadka isaga ah waa dadkii showga duubi lahaa waa dadkii YouTube-ka maxaan ku dhahay soo gelin lahaa waa dadkii lacagta u ururin lahaa waa dadkii albaabka u istaagi lahaa waa dadkii tigidhka u goyn lahaa waa dadkii u soo ballaangarayn lahaa intay gawaarida samiicadaha ku xidhaan iyo maxaan ku dhahay page-ka weyn Facebook-yada xayisiinta ugu sameynayay dadka noocaasa weeyaan dadka showga ka kansala fanaaniinta ama u daaya dadkaasi marka qabiil ma aha shakhsi ma aha team ma aha dawladna ma aha waa dhalinyaro shaqadoodu tahay miidiyaha oo istuudiyayaal leh oo isku xidhan oo kaameerada haysta oo team ah oo haddii aniga oo hebel ah ay ugu soo degto fanaanad hebel uunan fanaan kale ama shakhsi kale aynan igu garab eryeynin inuu ama maxaan ku dhahay aniga duubitaankeeda iyo soo bandhigideeda iyo dejinteeda iyo soo saaristeeda iyo lacagteeda qiimaheeda intaba kolku qofkaas ugu soo dego anaa garab ka siinaya ku saaciideynaya waayo qofkan wuxuu u baahan yahay qof showga u duuba wuxuu u baahan yahay qof lacagta hore uga ururiya iyadoo heesayso oo tiyaatarka taagan albaabka lacag kama gurayso dadkii noocaas ahaa ee saaciideynayay haddii ay fanaanka isku dhacaan dadkaasi waa dad Kenyaana waa dad maxaan ku dhahay meeshan ku nool qabiil maaha laakiin waxay ku awoodaan inay ku dhahaan show ma dhiganaysa iska bax hadday ku sii daayaan oo dhiga ku yidhahdaan aadan dhiga bakrin okay sidaas bay arrintu ahayd ay farxiya ka dhigtay qabiil ma aha qabiilada Soomaaliyeedna meelna kuma kala badna meelna kuma kala awood badna meelna iskuma gumaystaan meelna iskuma yasaan waana walaalo markii taa laga yimaado xogaa farxiyo su'aasha ay gaarka i weydiisay waxay ahayd yaa kuu doortay ama kuu dirsaday inaad fanaaniinta anigu weligay fanaaniguma soo degin weligayna inta badan show aan duubay ma jiro showyo aan dad caawiyey ama aan wixii kaamay show aniga inta la ii xil saaray anigu aan duubay iyo fanaan igu soo degay iyo fanaan aan la dagaalamay iyo fanaan aan diiday midna ma ay jiraan qof kale malaha igu qaldaysaa oo aan isu ekaanay taa markaan ka imaado su'aashaasi ima khusaysa ay i weydiisay ayaa kuu doortay ah askarina ma ihi maxaan ku dhahay fanaanna ma ihi fanaan u ekana ma ihi dilaalna ma ihi qof xataa fanka xiiseeyo oo dhex orordo oo inta badan ma ihi khibradayda iyo xirfadayda waa saxaafadda oo keliya taa markii iyadana aan halkaa kaga gudbo farxiya xoogaa ugu dambayntii way sii ballaadhisay su'aalaheedii daqiiqado wuxuu socday 40 iyo dhowr daqiiqo aan malaynayo kama wada jawaabi kara marka hadalkeedii ma raaci karo iyadan laakiin bal dib u dhageyso oo raaligelin ka bixi waxyaabaha aan geyin dadka Soomaaliyeed ee aad ku tiri aan dhihi lahaa muqdishada ay sheegayso fanaaniinta Soomaaliyeed baa u siman bal ay dayniilay u siman fanaaniinta Soomaaliyeed oo laga celin karin iyadana dhulka Soomaaliyeed oo dhan baa u filan ma aha inay ku faantay muqdishaan leeyahay ay tiraahdo haddii Nairobi ama Jigjiga ama hebla aad igu wanaajin weydo muqdishaan kugu waxaynayaa muqdisho waa loo sameeyay Nairobi waa loo sameeyay awoodda aad muqdisho ku leedahay umad Nairobi ku leedahay meel kastay Soomaali joogtana way u siman tahay xataa hadday ku kala badan tahay way u siman tahay wixii siyaasadda meesha ka baxsan isagu siyaasadda ama dagaalka Soomaali waxay ka midaysan tahay 80% inteeda badan Ethiopia nacayb ama gumaysi nacayb ruuxii Ethiopia taageera ama soo garab istaaga Soomaaliya oo dhan baa la dagaalamay reer ogaadeen bas lama dagaalamayaan Soomaaliya oo dhan baa la dagaalamay fanaaniin fara badan baa yimid oo og tahay adigu ka mid tahay waxa laga urinayay qabiil ma ahayn deegaan ma ahayn shakhsi ma ahayn Ethiopia haddii mar lagaa urinayana suurtagal kuma aha inaad meel ay ONLF ka dhowdahay ama Soomaalinimada qof jecel uu ka dhow yahay aad show ku dhigato ama nabad aad ku joogto macquul ma ahayn mana suurtagelaynin hadda heshiis baa dhacay Nairobi garoonka qaabkii cadaani loo soo dhaweeyaa lagu soo dhaweynay taasna haddaan halkaa kaga gudbo xoogaa waxay siisay hadallada aakhirkoodii ninkii la odhan jiray saaxiibkay Maxamed Saciid Bikay oo muqdisho eray aad iyo aad aan uga naxay ku yidhi
ama kaga hadlay oo jidhkayga qumaati u danqay yacnii qof soomaaliyeed haddii ay wadaniyad ku jirto hal tuulo ah oo soomaali leedahay kama maarmi karo madcalle waa caasimadii ummadda soomaaliyeed qof ka maarmay oo yidhi ha iga maqnaato yacnii qofkaas meel uu socdo ma garan karo waa arrin aada looga naxo arrintii bay garab siisay oy tidhi yaan lala yaabine saas iyo saasuu ka waday waagan hargeysa caayay in hargeysa ma tegaya idhi anigaba taasoo kalea igu kalliftay iyaduna qiil kuma laha inay hargeysa wax ka sheegto isaguna inuu muqdisho wax ka sheegay qiil kuma laha labadooduba aad bay ugu qaldan yihiin iyaynana ugu raadsanin inay hargeysa garab kaga hesho yacni waxaad moodayso qof u kaambayn garaynaya ama beerlaxawsi ka raadsanaya hargeysa way tegi kartaa iyadoon qofna beerlaxawsi ka raadsanin inay markii hore ku qaldantaa qalad ahayd haddana iyada oon qof beerlaxawsi iyo baryo iyo shukaansi iyo waxba ku samaynin iyo hargeysa tegi kartaa ha tagto ha tidhaahdo way cafiya wixii hore aan idiin geystana raalli ahaada haddana laakiin muqdisho gef uu ka galay b k yaynan ku dadin inay hargeysa show ku dhigato ama ay tagto oo kale gefkaas uu b k galay waa gef u qoran waa gef soomaaliya o dhan og tahay waa gef uu ku dayacay uu ku duudsiyey uu ku nacay uu ku xooray uu liiskiisa kaga saaray caasimadii ummadda soomaaliyeed ee muqadaska ahayd ee calanka buluuga ah uu ka babanayay calamada kelilada ama deegaanada ama maxaan ku dhahay ismaamul goboleedyadu waa waxyaabo maamul hoose oo kolkii burburkii ummadda soomaaliyeed uu dhacay qoys walba ama in walba oo is ag deganeed waxay tidhi calankan aan isku fahmi karnaa annagaa ismaamuli karna tusaale bahashii boosaaso ama garowe ma hoos tegi karta ama wax lama qaybsan karto meesha la yidhahda gaalkacyo ama dhuusamareeb waayo dagaal sokeeyaa dhacay marka gaalkacyo iyo dhuusamareeb iyo intii la halmaashaana gaar haysu maamulaan qoladana gaar haysu maamusho laazimna markii maamulkaasi uu socday boogtan dad ka bogsoto waa kuwii laisku dardaray waxaan rabaa inaan marka in yar sixid dul istaaga ama caddayn farxiye haddii aan hadalkeeda u raaco oo waxaa meesha ka jira qabiil in la isku gumaysto ama lagu kala awood badan yahay uu yahay oo ayna ahayn siyaasadii geeska africa oo dhan ka jirtay ee hadda isbedeshay waxaa la dayn lahaa nimcadareen oo showgeeda qabiil ku qabsan lahayd haddii ay isbarbar dhigto nimcadareen iyo suldaan seeraar iyo xariir isku tiyaatar bay ka heesi jireen hadda haddii ay yimaadeen xariir iyo suldaan oo loo kala kiciyo qabiil ahaan looguma kala kicinin ee siyaasadda iyo jawiga oo isbedelay yay magaalada oy dadka ula siman yihiin showgoodii ugu dhigteen nimcadareen wiilashii showga ka kansalay ee weliba dhaawacay ee u gacan qaaday ee iyadiiyo waxay wadatay burya dambas ka dhigay qabiil bay ahaayeen ama ilmadeeradood bay ahaayeen danta ay u kala kaxaynayeen fahan horta qabiil ma ahayn intaa la fahmaan jeclahay nimcadareen iyo showgeedii iyo ciddii la mid ahayd iyo kii farxiyo kaba yaro loo diiday horaa intaba wixii loo kansalay wuxuu ahaa qadiyad ama dagaal ethoobiya lagaga soo horjeedo iyo dad ethoobiyaanimo laga urinayo hadda arrintii way isbedeshay nimcadareen baa imaan karta adigaa imaan kara cid kasta oo soomaaliya oo fanaan ah oo leh taageero dad ugu yimaadaan oo showga loogu soo buuxiyo yaa imaan kara sidaa in loola socdan jeclahay qofkii ummadda soomaaliyeed ethoobiya usoo raaca ama kala qayqaybinteeda iyo kala jajabkeeda iyo qabyaalada iyo qashin dhexgeliya mar walba dhan baan ka nahay aniga iyo dadka fikirka ayla qabee ummadda soomaaliyeed oo dhan baan ka nahay aniga iyo b k marka wax kale oo noo dhexeeya ma jiro hadalka ayay farxiya keentay b k baan dabcan kaga hadlayey b k xogagaalumaan ka ahayo kuwii u geystayna ma ahayn kuwii afuufayna ma ahayn kuwii ku wiirsadayna ma ahayn kuwii taageersanaana ma ahayn laakiin xogta oo si hoose igu soo gaadhay oo xogogaal ah yaan wariye nuur maxamed saaxiibkay ula wadaagay si waafi ah oo aan horay social media loo soo gelinin b k marka waxaa naga dhexeeya wuxuu yahay hargeysa oo aan wada leenahay oo naga dhaxaysa oo magaalo soomaaliyeed ah yuu ii diidan yahay uu aaminsan yahay inaana lahayn muqdisho oo uu leeyahayna wuu diidan yahay uu aaminsan yahay inuuna lahayn uuna ku qasban yahay wuxuu isagu goyn karo qalinkeeda ma aha intaasaan kusoo goynaya farxiye waan salaamayaa hayga raalli haato haddana hadallada meelaha qaar ku kuleeliyey markii horena kulayl igama ahayn haddana kulayl igama aha b k laftiisa waan salaamayaa waxaanu nahay ummad isku diir ah oo isku dad ah oo isku dan ah oo isku diin ah oo isku dal ah waxaa noo qaybsan waa fikirka hoose ee shakhsiyanka ah anigu sidaasaan aaminsanahay isaguna si kaleu aaminsan yahay annagoo kale aaminsan baanaan sidaa ku kala tegaynin farxiyana inay taa aaminto totaliba bahashan qabiilka la yidhahdo habaryartay dhashay iyo eedadayba eedaday dhashay meeshaa ka saarto wax qabiil la yidhahdo oy soomaali wax isugu qaban ama wax isugu tahay ma uu jiro soomaali waa hal odayaa dhalay waa xataa abtirkan la kala fogfogeynaya ee reebel aan jirin farxiyo abtirsigan iyo habaryartaybaa dhasheenta hay naga dayso
dhulkana lama kala xigo lamana kala fogo hal qoys baa la yahay siyaasad baa lagu kala fogaadaya siyaasadda fiican ha taageerto siyaasadda fiican hadday taageerto maamuladana nabadgeliso meel kasta xor bay u noqonaysaa intaas qaacidada yar ee toosan baan siinaya rabbi ha idin karaameeyo aad baan idin salaamayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wagaag aad baad mahadsantahay daawadayaalkaasina waxau ahaa cabdiraxmaan maxamed axmed oo mar kale aanu ku kulannay stuudiyaha s s t v kaasi oo kala hadlayay s s t v jawaab kooban uu ka bixiyey hadalkii walaasheen farxiye maxamed kabayare oo aan aad u salaamayno oo ah fanaanad soomaaliyeed taas oo barnaamijkiisii hore ama wareysigiisii hore reaction ka soo bixisay si toosana barteeda ay ku leedahay facebooka usoo gashay waxyaabo badan oo arrimahaasi ku saabsanna ka hadashay iyada oo weliba dhalinyaro soomaaliyeed oo nairobi ku sugan si gaara eedda u saartay uguna eedeysay inay dadka soomaaliyeed ee magaalada nairobi ku nool iyo weliba dalka kenya guud ahaanba ay iyaga u afduuban yihiin inta aan ka ognahay nairobi baan ku nool lahay wax badan oo soomaalida ku nool xog aanu ka haynaa inta badan ma ogin kolley annagu arrintaas ay walaashan farxiye kabayar sheegtay ka s s t v ahaan wax xogana kalama soconno in cid soomaaliyeed ay cid soomaaliyeed oo kale ay nairobi ugu afduuban tahay dadka soomaaliyeed ee jooga nairobi karaami iyo walaaltinimo ay ku wada joogaan wixii fanaan iyo maaragtay dad kaleeto oo howlaha fanka ka shaqeeya dhex mara waa gooni laakiin dadka soomaaliyeed ee nairobi jooga hadday dhalinyaro yihiin iyo haddii ay waayeel yihiin iyo hadday culimo yihiin iyo hadday ganacsata yihiin intaba inta aanu anagu xoogaal ka nahay dadka soomaaliyeed karaami iyo sharaf iyo walaaltinimo iyo isjacayl bay ku wada joogaan cid maaragtay ree hebel iyo ree hebel isu kala qaybisana male si xora loo wada gaacsanaa si xora loo wada socdaa si xora asxaab loo wada yahay hadba labadii iska heshay iyo labadii deegaan dariseeyo ee walaalaha si xor ay walaalo u yihiin cid kani waa ree hebel iyo kani waa ree hebel iskala tidhaahdana inta aan ogahay nairobi ma joogto kuwa fanka ka wada shaqeeyana ma aha maaragtay ma aha dad gaarahoo gobol gaara iyo deegaan gaara kasoo jeeda waa dad soomaaliyeed oo soomaalinimo isu keentay sidaas laba fanaan oo soomaaliyeed aysan isugu raacin qabiil labadii marba ay maaragtay fankooda uu ama hees wada qaadaya ama maaragtay si kale asxaab u noqda ay isu raacaan showna ay u wada dhigtaan sidaasoo kale kuwa showyada abaabulaana inta badan iyagoo soomaaliya isugu xidhan yihiin dabcan waxaan u malayn farxiya waxay dad gaar ay magac dhowday oo hebel iyo hebel tiri kuwaasna bal waxaan ku dadaali doonaa inaanu heli karro haddii alla idmo oonu idiin soo gudbin doono iyagana farriintooda haddii rabbi qadaro waxyaabaha ay ku eedaysay si ay uga jawaabaan laakiin annagu intaanu xoogaalka ka nahay dadka soomaaliyeed ee nairobi ku sugan wax dhibaatayna kama dhexayso cid u afduubanna ma jirto cid gaar isu kala qaybiso oo intaasi waa koox ree hebela iyo waa koox deegaan hebel kasoo jeeda iyo intan waa ree muqdisho istiraadaana ma jirto dadka soomaaliyeed hadba labaday dabeecadoodu heshiisana way israacaan maaragtay nabadgeliyo iyo wanaag bayna ku wada joogaan intaasna waa inta aan anagu dabcan xoogaalka ka nahay aad iyo aad baanu mar kale idiin salaamaynaa daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan waxaana rajaynaynaa inaad wax walba wanaagga aad ka raacdaan oo xumaantu aynan badanin ee wanaaggu bato dadka soomaaliyeed waa dad wada walaala meel kastoo ay joogaan gobollaha kala ahaadaan laakiin iyo deegaanaha kasoo kala jeedaan laakiin haddii qurba la tagay iyo haddii maaragtay meel kale la tagaba dadka soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waa ummad soomaaliyeed ummad af soomaali ku hadasho oo aan soomaali ahayna ma jirto laakiin ummadda soomaaliyeed waa ummad soomaaliyeed marka sidaa daraaddeed waxaanu rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay wanaag ka raacayaan maaragtay wixii ay arkaan xagga wanaagsan ay u fikirayaan haddii xagga wanaagsan loo wada fikiro waxaan isleeyahay waxba muusan xumaadeen inta aad cay iyo maaragtay aflagaado iyo in qof maaragtay aadan aqoonba u lahayn aad iska caydo ama aad dhibaatayso aad ku talagali lahaydna waxaa ka wanaagsan in aad ku tala gasho in qofkaas haddii xitaa uu khaldan yahay inaad u nasteexayso hadal wanaagsan usoo qorto dabcan haddii xitaa qof khaldan aad aragto hadal wanaagsan u qorto waxaa laga yaabaa in khaladkiisii uu isgarto uu ka noqdo laakiin haddii aad cay iyo aflagaado u miisto xaaladdu way uun sii murgeysaa baan isleeyahay marka dadka soomaaliyeed sharaf iyo karaam ay naga mudan yihiin meel kastoo ay joogaan iyo si walba noo daawanayaan cid gaara lama hadlayno soomaaliya oo dhan baan la hadlaynaa sidaa daraaddeed waxaan leenahay hadalkiinu ha noqdo mar walba mid wanaagsan dhaliisha aad bixinaysaanna ha noqoto dhaliil wanaagsan ood qofka walaalka ugu nasteexinaysa haddii uu khaldan yahay waxna ugu sheegayso laakiin yayna noqonin cay iyo aflagaado aad iyo aad baan idin salaamaynaa mar kale iyo mar saddexaadba waxaanu idin leenahay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabaadiina waa cabdiraxmaan iyo nuuro idin leh kulanti wanaagsan